صندقة عشان كتير مع الفرارش كله شوال يسيا فايد نوم كمال هل أحسن طلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل هذا داونيسين المديدة مروجديدة تيرانيديدة والبهار كده مقعد وحلا إلى دار رقية الشيخ عثمان حاجي حسين. muddo laga joogo sanad oo ku beegan bishii hore ee Ramadaan bilowgeedii oo ahayd sanad guurada maalintii uu Cabdimaalig Muuse Coldoon uu la kulmay Ruqiya Sheekh Cismaan oo kamid ahay dadka danyarta ee magaalada Burco oo markaasi ay haysatay xaalad adag oo u soo bandhigay dadka muslimiinta isagoo isla markaana u dhisay guri ayaa maanta la hadlay telefishinka Horyaal iyagoona ka codsaday xukuumadda in la sii daayo Cabdimaalig Muuse Coldoon oo hore u kaalmeyn jiray dadka tabaalaysan waana tan iyadoo hadlaysa arrimahaasi xasuustaan Ramadaanteedu waa xasuustaan iyadoo laba cisho ay ka dhiman tahay meesha uu yimid walaalkayga Cabdimaalig Ilaahay khayraad siiye maanta nolosheena hore iyo maanta nolosha aan ku jirno meel misla galaan ma fahantay tii hore Ilaahay waa na soo dhaafiyay noloshii hore oo maxay ahayd hooy maanta daqiiqada ma taale hooy bari maxaa cunna uu dhihi jiray ka yar maanta alxamdu rabbil caalamiin tii dhan Ilaahay uu naga soo gudbiyay waxaan codsanayaa maanta ay codsi iga tahay oo Ilaahay dartii aad u sameeysan in maanta Cabdimaalig noo soo daayo waa u baahanahay Cabdimaalig garab aad iyo aad u weyn noo aha حتى أنا كل جيجا ما هي ولا لك والله مسلمين هندرات أركي ولا المعان وحالي يقولوا بشي رمضان واتنا الرقية أفرضي أنا سين دونه مركز عن سؤال شيء جوابتي ذو علم وسؤال شيء ويدين جوابتي ذو والله أنا مركز عن عبد المالك أنا ودعينا برتي أنا كدعينا ربنا وأنت والله برتي وروبك كوي مادي ما أنت وحائدين ويدين يا ضد ولا له جهاتين هدي عدسي جيجا لا إيه لا عدسي جيجا أتي مقلسان إلهي درتي عبد المالك يجي سوداي dhinacaygan waxa imika taagan Ruqiya Sheekh Cismaan Ruqiya maadaama oo dhismihii markii hore aad deganeed yahay sanad ka hor hadda maxaad bulshada muslimiinta aad faraysaa الحمد لله بالعالمين مركه هور انت دغنا ما فهمتي حالdeeda marka hore inta gurigeyga marka hore intaas ahaa inta degana ma fahansan daqadna u jeedisay tahay maanta gudaheedana aragtay oo tiyubka horna aad aragtay alxamdulillah bilcaalamiin maanta ilaahay qafuur raxiim waa aragtay ilaahay qafuur raxiim Cabdimaalig tii soo diray waxaan deganahay balool maxay haday afar qol ah iyo labadiisi suuli iyo jikadiisi alxamdulillah bilcaalamiin ilaahay asaga qafuur raxiim ilaahay waxaan ka baryaa man xawaan xariista inuu ilaahay Cabdimaalig uu soo daayo geesta kale waxa iyaduna halkaasi ka hadashay حياة حرسي حسن ودرس هرلا أهيد رقية شيخ عثمان إيادونا كور بحسي كهورينتي أنو كالمدى بنادنتني ما أوفيدين السيدي أهايان قويس كالرقية إيادونا قوبتوغ وهيد وقتي قاسي xaaladda ay ku nooleed waagii ninkeedu qabay nolosha ay ku jirtay iyo markii uu dhintay nolosha ay martay iyo taariikhaha ay gaar ahaan gurigan ay ku nooleed xaalad aad u xun ay la soo daristay ma sha Allah anagu baa la jaara oo ka warami karna oo la nooleen oo u soo wareegi jirnay saddex qadaday tahay xitaa dadka ma oran jirin waxaan doonayaa alladii qof walaalo gacalabana baahidaas ay haysan ma oran jirin seeladaas qaban jirtay daasada caana boodhaan bay inta ururin jirtay ilmaha saddexda waqti hal waqti bay u karin jirtay mishaali yar bay walaaqaysa markaan u soo wareego aan salaada ama 10 kun ama 20 kun uge carruurtu wax ma u karaysa may walaal insha Allah waan iska helaya mar dhow haddaan dabka u shidaya saaka xumaysiin maanta xumaysiin gabal dhacay bay wax siinaysa xaaladii iyadoo sidii ugu jirta ma sha Allah Cabdimaalig baa Ramadaanteedii Ilaahay u soo diray bas dadka baahideeda u sheegtana ma ahayn haddaba xitaa waxa ay qabto iyo waayahay qabto kaagama waramayso 90% way qarsanaysaa inaka Cabdimaalig baa Ilaahay u soo diray bas sidii baa loo gacan qabtay gurigaas ayaa loo dhisay xaaladii inaka ay ku jirtay iyo tan ay maanta ku jirtay faraq weyn baa u dhaxeeya annagana de waabaan ku farxnay bade waayo de awlaadda yar wanta halka ku noolay marmarka qaarkood biyaha ay cabayaan ay waayaan bade saaka meeshay kaga tagtay duhurkii inta aan baxday iyagoon dab shidan quraac qado taasida caana boodho la jexjeexo dib loo iibinayo mishaali laga karsanayo bariisna waadane wallahi taa markaan xasuustay iminka nolosha ay ku jirto de aad baan ugu faraxsanahay ma sha Allah taariikhahaas ay soo martay maantana de Ilaahay baa ugu nimceeyay waa taa guriga loo dhisay ayna ka Cabdimaalig u kacay markii dambana waa ka isagana la xiray alxamdulillah rabbil caalamiin damaanta barwaaqi ku jirta maxamed saciid gaxnug telefishinka Horyaal Burco dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududaynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub
abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helayaa adeegga e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed